kulan ka dhacay xarunta wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland kuna sugnaayeen madaxda wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka iyo mas'uuliyiinta shirkadaha gaadiidka rarka khudaarta ee degmada Togwajale ayaa lagu shaaciyay go'aamada wasaaradda gaadiidku ay ka soo saartay khilaafka u dhaxeeya shirkadaha gaadiidka rarka khudaarta ee degmada Togwajale. agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka Soomaaliland Axmed Abakar Maxamed ayaa faahfaahiyay go'aamada wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku ay ka soo saartay khilaafkii u dhaxeeyay shirkadaha gaadiidka rarka khudaarta ee degmada Togwajale. halkan maanta waxaan kula kulanay labadan shirkadood ee iskaashatada iyo shirkadan kale oo maalin khilaaf soo yar ka dhaxgalay sida saxaafadii media ka maqasheen. wareen horta waxaan jecelahay halkan aanu la socodsiino bulshada iyo dhammaan dadka reer Soomaaliland in qof kasta muwaadin reer Soomaaliland gobol kasta iyo deegaan kasta ka mid yahay in dalka markaa ay u sameeyeen oo ganacsigiisa iyo shaqadiisa iyo magaranaysa horumarkiisa cidina aan markaa carqaladeyn karin cidina soo taagi karin. dawladuna markaa u jirta markaa muwaadiniinta ay ilaalisa markaa xuquuqdooda iyo shuruucda dalka jirta. ta kale aan jecelahay bulshada dhamaan la wadaagno waxa weeyaan qof kasto muwaadin ah oo cabanaya ama adeeg dawladdu bixinayso ama cid kale oo shicib ka cabanaya ilaa ma dawladda iyo cid khusaysan markaa ugu horeyn uu tago intaanu media iyo saxaafadda la hadlin si wixii markaa uu ka cabanayo wax looga qabto. markii aan maqalnay markaa cabashadana soo gaadhay labadan qolo waan u yeedhnay way dhageysatay wasaaraddu labada dhinacba kadibna waxa la soo saaray markaa go'aamadan maanta. ugu horeyn iskaashatada markaa xeerkeeda iyo xoraasaadkeeda in la waafajiyo xeerarka gaadiidka dalka ee dhaqangalka ah ee wasaaraddu markaa dhaqan gelisay in la waafajiyo in qaab dhismeedka iskaashatada laftiisa la waafajiyo qaab dhismeedka guud ee iskaashatada gaadiidka ee dalka ee wasaaraddu dejisay. qodobka saddexaad in ganacsatada in shirkadda la yiraahdo maasha Allah leedahay markaa Maryan loo ogolaado markaa inay hawsheeda iyo shaqo iyo gaadiidkeedu sidii ay hore ugu shaqeyn jireen ay ugu shaqeeyaan. go'aamadan maanta la soo saaray markaa cidii ka hortimaada ama cidii carqaladaysa in sharciga markaa la tiigsan doono. afarta qodob markaa wasaaraddu soo saartay. dhankoodana mas'uuliyiinta shirkadaha gaadiidka ee khilaafku ka dhaxeeyay ayaa si isku mid ah u soo dhaweeyay go'aamadaasi ee ka soo baxay wasaaradda gaadiidka. anigoo ah gudoomiyaha iskaashatada gaadiidka Liibaan Togwajale Jaabir Cabdiraxmaan Yuusuf wasaaradda waa mahadnaqnaa sida waanay arkay u gashay isugu soo dhaweysay oo amirtaayna fartayna waa qaadanana insha Allah waa dhaqan gelinayna shuruud kastoo looga baahdana waa buuxinayna. waxaan kaliya u gudbiyaa horta qofka koowaad laga cawdo anigu ahaa horta waliba iga kacbatay weeda kacbatay anoo mar hore raali geliyay imankana waan raali gelinayaa raali gelin dhamaan insha Allah. wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ayaan joogaa waana u mahadcelinayaa arrinkaygiisay uga falcisheen oo iigu yeedheen oo ii qaabileen aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantood wasaaradda oo dhan waan u mahadcelinayaa. arrinkii waxa weeye waana leega raali geliyay waana qaatay wasaaraddana wixii dambe go'aan ka gaaraysa inta wasaaradda go'aan ka gaaraysana shaqadeydii inaan free ku shaqaysto aan gaarigayga cidi hor istaagi karin ayaa lay fasaxa.